madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu soo gaaro magaalada caasimadda ee Muqdisho si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale lama sheegin waqtiga rasmiga ah uu imaan doono magaalada caasimadda ee Muqdisho. talaabadan ayaana waxa ay ku soo aadaysaa kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhigiisa Uganda ku casuumay magaalada caasimadda ee Muqdisho si uu u yimaado kadib markii shalay dalka Uganda ugu tagay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dhanka kale madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaana aqbalay casuumaadda uu fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoona sidoo kale sheegay in maalmaha soo aadan uu soo gaari doono magaalada caasimadda ee Muqdisho. sidoo kalena labada madaxweyne ayaa shalay ku heshiiyay 12 qodob oo dan muhiim ah ugu jirto labada dawladood ee Soomaaliya iyo Uganda. sidoo kale qodobada ay ku heshiiyeen ayaana waxa ugu waaweynaa in beesha caalamka loogu baaqay taageerada dhaqaale ee ciidamada midowga Afrika in 25 Abriil ay shir isugu yimaadaan dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya iyo sidoo kale dhaqangelinta heshiiska military ee Soomaaliya iyo Uganda horay u gaareen. si kastaba ha ahaatee arrinkan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu shalay booqasho ku tagay dalkaasi Uganda.